bartamaha habeenada ka mid ah nin tuug ah ayaa waxa uu gudaha u soo galay guriga uu deganaa Allaha u naxariistay caalimkii qiimaha badnaa ee lagu magacaabi jiray Malik bin Dinar oo ahaa shakhsi si aad ah loogu yaqaano fidinta diinta Islaamka oo uu ku bilaabay gudaha dalka India iyo guud ahaan koonfurta Aasiya isagoo inta badan waqtigiisa ugu khidmeeyay inuu dalal badan gaarsiiyo diinta Islaamka muddadii uu ifka ku noolaa. Tuuga oo si shanqaryari ah tallaabada u qaadayay ayaa bilaabay inuu raadiyo wax uu gacanta ku qabsado, balse uma suuro gelin inuu helo shay uu qaato. Intaa kadib tuugii waxa uu arkay Malik oo tukanayo. Haddaba waxaa lama filaan noqotay in Malik markii uu salaada dhameeyay uu salaamay tuugii, wuxuuna si degan oo naxariis ku jirto u yiri, waxaad halkaan u timid inaad hesho mataac yar oo aad adduunyada ku noolaato, ma jirtaa wax sahay ah oo aad aakhiro u horumarsatay. Tuugii waxa uu garan waayay wax uu ku jawaabo, waxaana ku adkaatay su'aashii la weydiiyey. Dabadeed Imaam Malik waxa uu markiiba waana iyo baraarujin kula dhaqaaqay tuugii ilaa intii imaamka garkiisa ay ka qoyso ilinta ka soo qubanaysa labadiisa indhood, taas oo ugu dambeyntii natiijo u noqotay inuu wiilkii ku soo hanuuno isla goobtii. Kadibna ay si wadajir ah masaajidka u beegsadeen iyagoo doonayay inay gutaan waajibka salaada subax oo waqtigeeda la gaaray. Imaamka iyo tuugii oo wada socda markii ay masaajidka gaareen, waxaa la yaab ku noqotay in dhammaan dadkii masjidka gudihiisa ku jiray ay mar qura ku dhawaaqeen cod aad u sarreeya, subxaanallah, subxaanallah, waxaa maanta wada socda caalimkii ugu weynaa iyo tuugii ugu weynaa. Arrintan ma tahay mid caqligal ah? Ayay si wadajir ah u weydiiyeen caalim Malik. Imaamkii ayaa ku jawaabay, wiilkan aad arkaysaan waxa uu gurigayga u yimid inuu wax iga xado, laakiin aniga ayaa soo xaday. Waan waaniyey, waan ka qaalib noqday, waxa uu wanaajiyey dhaqankiisa, waxaa nasahan Rabbiga toosiya akhlaaqda qofka. Si kastaba ha ahaatee, wiilkii tuugga ahaa waxa uu waqti gaaban kadib noqday mid ka mid ah ardayda ugu caansan ee ka aflaxday cilmiga imaamka, una istaagay xoojinta iyo faafinta diinta Islaamka. Ugu dambeyntii, xigmadda ku jirta qisadan waxa ay tahay inaan marnaba qof lagu takoorin xumaanta uu sameeyey ama qalad ka dhaca, iyadoo taas beddelkeeda loo baahan yahay in loo naseexeeyo oo aan marnaba meel looga dhicin sharaftiisa iyo cirdigiisa. Ku dadaal inaad ka fogaato qalad lagu saxo oo aan haba yaraatee wax wanaag ah soo kordhinayn inuu wax qarribo mooyee.